waan ku salaamay saaxiib. Imaam Axmed bin Xambal ayaa la weydiiyey sidee ay dadka looga aamin heli karaa. Waxa uu ku warceliyey si iyagoo ha ka qaadan, iyagoo ha ku dhibaan oo adigu waxba ha u geysan, hawlahooda la qabo oo ha ku cadaadin hawlahaaga kula qabtaan. Markaas ayaa haddana lagu yidhi way adag tahay waayida inaad saa samaysaa. Markaasuu yidhi roonaan lahaydii haddii aad weliba sidaas un kaga nabadgelayso. Waxa laga xumaadaa saaxiibkayow inaynaan nimka dadka raadinaynin wax ka dheefno, ayna ka doonayno inaynu ka nabadgalno uun, inaynu ka helno xuquuqdeena ugu yar, jacliina faraha kaala baxaan ood nabad ka hesho, balse waa ma dhacan inaad ka badbaadaa. Noloshaada ayay ku nool yihiin inka badan intaad ku nooshahay. Waxay hilmaansan yihiin meesha ugu mudan afkoodu ku habboon yahay ay tahay wejigoodaasi uu Ilaahay ugu talagalay ee aanay ahayn nolosheenna ay afka la soo gelayaan. Wallaahi mararka qaar waxaad doonaysaa keliya inaad ogaato waxa ka farxiya iyaga si aad ugu samayso aad uga nabad hesho, balse saaxiibkayow waad ku fashilmaysaa. Haddii aad masaajidka ku badato waxay ku odhanayaan xagtir, haddii aad maqaaxiyaha ku badatana waxay ku odhanayaan xadhigga furad, haddii aad xaaskaaga la tashato waxay ku odhanayaan waa dameer loo taliyo, haddii aanad la tashanna waxay ku odhanayaan keligii talis aan xaaskiisu agtiisa miisaan ku lahayn. Haddii aad hadalka ninkaaga maqasho waxay ku odhanayaan shakhsiyaddeeda ayaa daciifa ah, haddii aanad dhegaysanna waxay ku odhanayaan waa farahaliqaad dheg adag, haddii aad bugaagta iska dhex fadhido waxay ku odhanayaan waa mid xidhxidhan, haddii aad ciyaaraha daawatona waxay ku odhanayaan qof maalaayacni ah, haddii aad shaqaysato waxay ku odhanayaan gurigeedii ayay dayacday, haddii aanad shaqaysanna waxay ku odhanayaan shahaadooyinkeedii way khasaarisay. Sarkhaanka iyo midka cibaadada badan midna dadka ma qanciyo, kaay ceeb u waayaanna iyaga ayaa mid u sameeya kadibna ku caaya. miyaanad maqal nebi luud naxariistii nabadgelya korkiisa ha ahaatee tolkii waxay ka sheegeen akhrijuu aala luudi min qaryatikum innahum unaasun yatadaharuun. ka saara qoyska luud degmadiinna waba dad isdaahirinayee. markii ay gafi waayeen ayay nadiifnimadoodii iyo ceebkasaliinimadoodii ku caayeen. markaasaad adiguna isweydiinaysaa sidii aad dadka u raaligelin lahayd. ma jirto qaab aad u raaligelinaysaa saaxiibkayow, ha ka yaabintaas. nabaaddiina saaxiib.